سيدي أتمنى وبيدين وبعلمي ومنطقة حياة بالأمس إن شاء الله تعالى ندودي رمضان جاهي إسلام رمضان سيد كمل مدرس القرآن الكريم جاه ندود سو جاه وأحوالك إن شاء الله تعالى سأكون بالأمس محاضرة وبعد ندود تصل الأسرة سنتهي الوسطية سمة المرأة المسلمة وإيمانها كبدا مسلمة إن شاء الله تعالى موضوع سيوحي وقال أيضا فضيلة الشيخ محمد شيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ويديسنا سبحانه وتعالى خير كينو نوغو كلميو intaa wada joogniyo intaan kala maqannahay bana oo diinteenna iyo adduunyadeennaba ina xifdiyo shuruurta iyo fitanka inaga badbaadiyo. أخواتي الكرام، موضوع وسطية أما قفكو إنه الدين تصيته سنقول رقمه وسن لوضع دينعم دينعيدا وقال لحنين، وموضوع جود مسلمين طبعا كدحية ويسميه رجية دمر marka laga soo tago dee qofka marka lala hadlayo oo nusuusta u qaato isaga inay ka hadlayso, laakiin intaan ka garanayo mawduuc dumar khaas ku ah maaha, mawduuc rag khaas ku ahna maaha. waa astaamo iyo calaamado guud iyo sharci iyo manhaj guud oo laga doonayo qof kasta oo muslima, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, shacab iyo madax intaba laga doonayo, iyo dadweyne iyo culimaba. mawduucaasi waa mawduuc qaybaha kala duwan ee qofka muslimka taabanaya, hadday tahay caqiidadiisa, hadday tahay cibaadadiisa oo rabbi caabudayo, iyo hadday tahay xataa mucaamaladiisa, hadday tahay si guud muslimiinta qaabka wada jirka ah iyo danaha iyo masaalixda guud ee ka dhaxeeya, iyo xataa hadday tahay qofku noloshiisa khaaska ah ee uu noolaanayo. waxaa looga jeedaa oo asal u ah, horta waxaa asal u ah aayaad qur-aan oo fara badan iyo axaadiis nabiga oo fara badan calayhi salaatu wasalaam oo erayadu ay kala duwan yihiin ay isticmaaleen iyo meelaha ay ku soo arooreen iyo sababaha iyo axkaamta ay ka hadlayaan, laakiin ka midaysan in qofka lagu dhiirigelinayo oo lagu boorinayo mar waliba inuu qof isu miisaaman oo dheeli tiran noqdoon dhan u badan. waxaa looga jeedaa ereyga wasatiyada marka la yidhaahdo ama dhexdhexaadnimada la yidhaahdo, waxaa looga jeedaa wuxuu yahay in qofku diintana uusan ku xatalax tegin oo quluwi uusan gelin, uunan ka gaabinin xaddii iyo xuquuqdii ay lahayd ama ay mudnaydna aanu dayicin, oo aanu ka gaabinin oo jafaa ama ifraad ama tafriid ama taqsiir uusan gelin. erayo dhowra marka la isticmaalaa markii wasatiyada laga baxayo, dhinac marka looga baxayo quluwi waa la isticmaalaa, tashadud waa la isticmaalaa oo nusuusta way isticmaashay, tanatuc ereyga la yidhahda nusuusta way isticmaashaa. ereyga kastoo la isticmaalo oo macnaha xambaarsanna dhibaato ma laha isticmaalkiisu. qofka ka gaabiyey ee wixii loo baahnaa ka soo ka dhacayna, nusuustu mar badan waxay isticmaashaa erayada ah tafriid, qof ku xadgudbay oo dayacay, taqsiir,
nusuusta kuma badna laakiin aljafana way isticmaashaa ama aljaafi labada eray baa ugu badan aljaafi iyo erayga la yidhaahdo altafriid tusaalahaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaada markuu ka hadlaya mar wuxuu leeyahay laysa fi nawmi tafriitun qofku inuu ka gaabiyo oo wax dayacaayo ma aha wixii hurdo ku dhaafa laakiin wax isagoo soo jeeda kas uga tagay oo kari kara waayo nusuustu markay erayga ama wasatiya ama wasat isticmaalaysa laba macnaa ugu badan oon kala maarmin khayr badni iyo cadaalad cadaaladuna waxay keenaysaa markaad xaqa rabbi ilaalinaysana sida uu yahay inaad u ilaaliso markay xaqa aadamaha iyo khalqiga tahayna aad sidooda u ilaaliso markay xaqa naftaada tahayna say mudnayd aad u ilaaliso taasaa waxay tahay isu dheelitiraan iyo qof miisaaman oo marna waxyaabaha qaarkood aynan dhaafinin marka laga hadlaya cadaaladda weeye marka khayr laga hadlayana oo waxa ugu wanaagsani jannada tilmaanteeda jannatulfirdows iyo waajibaadka qaarkood baa lagu tilmaamayaa kan ugu khayr badan inuu yahay oo nabigu firdowsa weydiista markuu lahaa fa innahaa awsatu ljannati wa acla aljanna buu yidhi jannada iyadaa ugu sarraysa awsadka bimacnaa khayru ljanaani weeye inaasi macnaha marka la yidhaahdo haddana waa eray wasatiyada iyo dhexdhexaad baa la rabaadu waa eray sharciga macno wanaagsan ku leh ummaddanna salafkeedii ilaa hadda lagu dhiirigeliyo kooxaha muslimiinta ee kala duwanna qolo waliba ay jeceshahay astaan iyo magac ahaan inay u qaadato haddana dhinaca kale waa eray si qaldan loo adeegsado oo marka la raba diinta in la iska fududeeyo la doonayo waajibaad badan in laga tago marka la doonayo diin masakhan oo silloon dadka in loo sameeyo gaalkiibaa wuxuu leeyahay wasatiyaa loo baahan yahay kii calmaaniga ahay ee diinku dhaqanka ka soo horjeeday wuxuu leeyahay wasatiyaa loo baahan yahay qof kastaba eray ugu yeedhayo weeyo haddaad dadkii dhagaysato kii muslimka ee saxnaana waa loo baahan yahay buu leeyahay marka waa eray marna macno saxan loo isticmaalo sida sharcigu rabaa marna loo isticmaalo macno qaldan oo dan gaara laga leeyahay oo la raba diinta in lagu masakha loo jeedo wey waqtiga oo kooban waxaan filayaa muxaadaradii labaad waqtigeedii wax 10 daqiiqo dhiman ka yar baa ka dhiman ama 10 daqiiqo uun sida la ii sheegay waxaan rajaynayaa uun nus saac gudihii bal inaan soo ururiyo nusuusta ku soo aroortay kadibna kalimaad tacliiq aan ka iraahdo aayaadka qur-aanku way fara badan yihiin mar ilaahay suuratu albaqara wuxuu ku leeyahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas waxaan idinka dhignay ummadaha u dhaxaysa oo dhinacyada diimihii iyo caqaa'idkii iyo risaalaadkii ambiyadu la yimaadeen dadka labada dhinac uga baydhay midna aan ahayn oo si dhaba ugu toosnaaday saa darteedna mudan inaad noqotaan dad cadaalad ah oo aakhare marka la yimaado ummadaha ku marag iyo markhaati fura oo ummadaha iyo ambiyadoodu markay isqabsadaan ambiyadu idinka muslimiinta ay idin marag gashan doonaan oo markhaati idinka dhigan doonaan idinkuna maadaama rabbi idinka sheekeeyey ambiyadaas iyo nebiyadaa iyo dadkoodii wixii dhex maray iyo xaq iyo waxyiga inay gaadhsiiyeen ambiyadaad u markhaati noqon doontaan markay umamku ku doodaan seed u markhaati tihiin ma aydaan jooginna ilaahay baa saa noogu sheegay sheegitaanka ilaahay baana ku salaynaynaa markhaatiga yaga ayay odhan doonaan muslimiintu sida nabigu faahfaahiyey sala allahu calayh waalihi wasalam walidaalika markuu aayadda nabiga fasirayay sida xadiid abi saciid iyo kayrkii laga wariyey jacalnaakum ummatan wasatan alwasatu alcadlu buu yidhi wasadka qofkii waa qofka caadilka ah oo min hunaa waxaad garan cadaaladda iyo toosnaanta diinta xaqaa qofku uu ku toosnaado oo ahwaadiya naftu iyo bidacu aynan leexleexinin
inay tahay waxa aayaddu ka hadlaysa la doonayo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad kale wuxuu ku leeyahay oo macnaha cadaaladda looga hadlaya aayad badan la mid yihiin ya ayyuhalladhina aamanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist kunu qawwamina bil qist shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima cadaaladda in lagu dadaalo hatta xaqo adiga haduu ku galo inaad ka run sheegtoodan ka been sheegin kadib waxaa la yiri laba arrimood baa dadka saameyn ku yeesha markay cadaaladdu timaado ama saddexan iraahdo saddexdaas mid waa xigtiya qaraabo ku jiidata xigtada iyo dhalashada iyo raximka iyo qaraabtinimadu waa wax sababan dabeecad iyo dhaqanka aadamuhu in badan inuu eexdo oo dhinac u leexdo ama dhinac u xaqliyo u bato waxa kamida qaraabtinimada waxay soo socotaba adiga naftaada ay soo galiyo cid naftaada ka xigta ma jirto waxa la yiri marka walaw ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabina cadaalada uga tagina waxa la wada saameyn yeesha in qofkani qofaad maslaxad ka rajaynaysa uu yahayo maslaxad ugu badan ee aadamuhu ay adduunyada raadiyaana hantiya dhaqaaliya maal way qof xoolo laho waxay dhacdhacaad ka sugayso mararka qaarkood kaaga tuuro kaaga rido ay dhici karto inaad maalgelin iyo kharash hore uga qaadatay ama aad ka rajaynayso qofka xoolaha leh dadku waxyaabo badan bay dartii u sameeyaan xoolaha iyagu lama laha laakiin lacalla amaad wax ka heshaa ama wax kaaga soo duula ama waxaad ka heli lahayd aad ka weydaa haddaad saa yeeli weydo bay waxyaabo badan dadku u sameeyaan oo meeshii xooliya maal lagu sheego xataa waad aragteen nafta waa loo halaagaa badaha iyo saxaraha iyo waxa nafta lagu baabiinayo waxa ka dambeeyay diin iyo kursi midna ma ahane waxay dhaqaale iyo dhacdhac baa laga helayaa waay ilaha yurubta dhacdhac baa lagu sheegay dibka loo marayo waad aragteen iyo inta loo qarda jeexayo hadiiba qofkii dhaqaalihii agtaada uu taagan yahay sababteed inaad ugu eexato aad bay u dhacdaa waxa kale oo dhacda inta ka duwan aw faqiran in yakun ghaniyan aw faqiran qofka faqiirka ah iyo qof xoolaha haysta haday isqabsadaan oo faqiirku gardaran yahay inaad istiraahada laga yaaba kan u yar naxdo oo caatifadii yar naxariis dheeraada ku qaado naxariistuna xaddeedii ay ka baxdo halkii miisaankii sharciga intay kula talawdo atiraada kan hadii xoolaha lagu xukumo iskama bixin karo kanna inta waxba ogama baano hangaraarac lagu ma dhutiyo weeye ay miskiin kala dad ku xukunta hadda xageeska keeni ama waxa yar la isku haysta kan uu ka maarmaaye kana dabka loo shidinay isaga u xukunaa dhahda laga yaaba oo miskiinnimadii iyo naxariistii iyo qalbi jilayci oo xaq iyo cadaaladii ku dhaafiya way dhici kartaa marka Ilaahay wuxuu ka digayaa markay cadaalad timaado inaad labada dhinac mid u leexato hilib iyo dhalasho iyo xigta inay ku jiidato inay ku jiito dhaqaale iyo hunguri ku jiito inay ku jiidato naxariis iyo qalbi jilay inay ku jiidato baa laga digayaa waxna waa cadaaladda miskiinka dad wuxuu tarayso taadu jeebkaaga wax uga tar xooladdad wax ugu tar xooladdad iyo xaq dad baan u xukumay oo ugu eexan hadheena haday naxariistu ka run tahay adi jeebkaaga iyo xoolahaaga wax ka sii ama dadka u weydiiyo war miskiinka hal caawiyade laakiin markay xaq iyo cadaalad noqoto dhinacyada ha uga leexleexanina cadaaladda way talaleeyahay kamida macnaha wakadalika ja'alnaakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas waxa kamida aayadka quraanka ee tilmaamay xuquuqda kafaaraadka ee dadka ku waajiba qofka kafaara ku waajibto كفارة إنه جود مركين نقطه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أنت واحد بحين إنسان أما دريا الرد بحد كفارة كجود إنسان مد هذا مد قالي أنا كبيح لو ملها مد باب أو دمادون وحبق جوينين لقام أو قلا وحلقة ربا واحد هذا ضدكو أنت بدن
ay ku nool yihiin ama ay xidhaan waxa la xidha dadka intooda badani wax baaba'oon waxba u dhigminna maaha adiguna dadkaaga haddaad arad bixinaysa ama cunto u soo gadayso haddii aad awooddeeda leedahay oo qof kafaare gudayaaba tahay dee wax qaali ana inta badan ma raadisid miskiinna wax qaali ah ma raadiyo wax baaba'ana lama ogola waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo sunnadii isu kaashadeen markii zakada la qaadayo ama sadaqaadka la bixinayo qur-aanku wuxuu reebay waxa baaba'eedan qaadateen dee ha bixinin waxaana laga reebay qofka sadaqada qaadaya waxa qaaligee la jecel yahay inuu dadka ka qaado waxaa la doonayaa wax intaa u dhexeeya waxaan baaba'an ahayn wax qaali oon la keri karin ahayn wattaqi karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa fiicfiicana ka xulanin oo ha ka qaadin baa layidhi maxaa yeelay waa dulmi dulmigaana wuxuu keenayaa wattaqi dacwata almadluumi fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab qur-aanka waxaa ka mid a siyaabo kaleoo kala duwan xataa nolosheenna guryaha iyo nafaqada iyo biilasha ilaahay wuxuu ammaanayaa dadka qaar aayaddu waxay xambaarsan tahay dadka labada qaybood ee kale in la dhaleecaynayo waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaaman waa dadka markay nafaqada iyo biilasha iyo bixinayaan raggaa laga hadlayay gaar ahaan reerkooda kuma ciriiriyaan iyagoo heli kara wax ka badbadisoo dadkii xoola fasaadin iyo khasaaro ana ma sameeyaan intaa wax u dhexeeya baahidiina ku filan xoolo lagu ciyaarana aan ahayn yay biilka iyo dadka u siiyaan ay bixiyaan waa astaanta cibaaduraxmaanka lagu ammaanay weeye labadaa dhinac midna uma bataan waxaa ka mid a nabiy ilaahi subxana wa tacaala markii la waaninayay qisadii ku sheegay qaaruun baa ilaahay xoolo badan siiyey xoolaha badan ee ilaahay siiyey yaa labadaba la leeyahay ha dayicin labadaana dhinac ha u dhaafin wabtaqi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waxaa la yidhi wix ilaahay ku siiyey aakharaha halmaamin oo aakharaha wax ku bixi adduun keliya ha ku dhammayn aakharaan ku wada bixinna ha dhihine aakharaan ku wada bixinna xoolaha ha dhihin ee waxaa lagaa doonayaa adduunyadaadiina naftaada iyo intifaacaaga iyo xuquuqdeedii ha halmaamin walaa tansa nasiibaka min addunya nasiibkii adduunyadaada xoolahaaga iyo hantidaada intifaacsan lahaydna ha halmaamin aakhiradaadiina ha halmaamin lama ogola marka xoolahaaga inaad aakharaan ku wada bixin dhahdo waxaa kaloon la ogolayn inaad tidhahda adduunyo keliya aan u isticmaalaya oo aakhira waan qadin qof isu miisaaman oo labadaba xasuusan noqo anu zuhdi iyo cibaada aan u gu'iyo shilin iyo xoolaba ma raba kii soo gala ha socda lama ogola walidaalika nafs almacnaa bay aayaad kale ku timid oo waxaa la yidhi walaa tajcal yadaka magluulatan ilaa cunuqik walaa tabsuthaa kula albast fataqcuda maluuman maxsuuran gacanta waxaa la yidhi luqunta ha ku xirino qof aan sadaqa iyo khayrba wax kula bixin ha noqon oo gacmaha ka xidhxidhan gacantana ha wada fidin oo waxa ku jiroo dhan ha wada dhiibin maayo haddaad dhiibto baahi baad leedahay xuquuq baa kugu xeeran oo kugu lamaan naftaada iyo dadkaagaba ah hadhow qof aan waxba haysanin dee markuu gaajoodo calaacal iyo shallayti iyo haddaan wax la soo hadhi lahaa iyo waxaasaa kugu badan doona min baab qofka muslimka inuu og yahay wuxuu naftiisa ku bixiya sadaqaday ka mid tahay wuxuu dadkiisa ku bixiyana sadaqay ka mid tahay waxa kaleed bixinaysana sadaqa waaye tan lafteedu ajir la'aan maaha walidaalika baa la yidhi walaa tajcal yadaka magluulatan ilaa cunuqik walaa tabsuthaa kula albasti fataqcuda maluuman maxsuura marka ilahi subxana wa tacaala wuxuu inooga digayaa ummadihii inagu horreeyey ayaa toosnaantii ka leexday oo labada dhinac mid uga baydhay dariiqoodii ha qaadin aan la leeyahay iyagii baa laga sheekeynayaa in laga reebay arrintaas ilahi wuxuu leeya ya ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq war ahlukitaabow diintiinna quluwi iyo ka badbadaysa ku samaynina
أحكام أين حنباري كرين ينفتو وحينا كري كرينها كو حنبارنا مركر الله يقول تا سورة النساء وسورة المائدة يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دينتيني فهم كذي يكون رقم كذي هذه عبادتها هذه معاملتها هذه علاقاتها هذه نفطاتها فهم كذي يا عقيدة ذي يا عبادة ذي يا عمل كذي رقم كذي سكبت بديسة وأحكام تذي وحلو دردرة يا كمذا هين هقول رقمنا هنا الراعنا ضد سدا سبيعي أو يجنا دمي وماذا بدنا دمية هلك وحالنا تسي غلويجو إنه يهي دميتان هذه قلبي وانا كاته ماكو غلوي ما أنا يبدنا نية حمامة ما دو منافق غلوي ما سمعيه كمنافق ليراده عبادة زمان تذاب نبكو أهبا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالاوي ضد كبدنا غلوي قال له قد يجيو وعدد إخلاص بدن وعبادة بدن ومركا يولم وقنايسو مركا روحو كب الله بيا عبادة وحلا يرانا يا عبادة شرع وجدي كاسوليه كدر إنك لا كدر مكاسو كبد بدنا إياه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجلفتيسو لما الرماد والمناسبات أم دور مناسبات عبادة عبودة إلهي بو أرنتا غلويغا كاني مروة هاي صدح الصحابة قولي سيمد حاسس كيسي ورايستان نبي الصوم كيسيو صلاة ديسيو عبادة ديسي ورايستان مركي الله شيغي فكأنهم تقالوها وإلا يراتي هذا النبي محمد من عبادة بدناه وحو عبادة بدناه واي isaga ilaahay baa wax walba u dhaafay oo janna loo ballan qaaday annagu laakiin jannada saan u gaadhno cibaadaynta ka badan baan u baahannahay iyagii baa isfiiriya marka mid wuxuu yiri anigu waligayba guursan maayo ilmo iyo xaas iyo caruur iyo mas'uuliyad iyo soo mashquul ma cibaadadii iga mashquulin kuwaas aniga ma rabo ninna wuxuu yiri cuntada badan hadii la cuno hurdo badan iyo mashquul bay leedahay maalin oo dhan ba soom baan ugu jiidi waligayba afuri maayo midna wuxuu yiri soo habeenkaba uguma ajir badna anoo habeen basaaxan maayo iyaga dadaal bay ka ahayd waxay islahaayeen nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam ilaahay baa darajo gaarsiiyay cibaadinta ka badan baad u baahan tihiin idinku waxba ha ku dayanina cibaadadan way yartahay tiiba yaraysteen nabi markuu yimid baa loo sheegay sallallahu alayhi wasallam nimankaas yimido intaasayna waraysteen haweenka ummatul muuminiin baa u sheegay Anas baa warinay xadiiska Bukhari iyo Muslim markaasuu nimankii u yeeray markaasuu wuxuu yiri arinta ma jirtaa ها ساينات هذين ما جرتها وحول أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له أنا إلهي دين كعب سبحان الله أنت إلهي أن كعب صدانيه ما قاري كرتان أنا وان سومي وان عفوري وان سيحن وان سوتوسي وان تكن وان نقولسن تتكاس سدا قفكي كله حدا والله ماذا فليس مني أنا طريقي ما هيستو أنا ضدك يجي تشتكي قفا يستمع ضدك أس خير دوم بيكاهي عبادة بدية كاهي تصالها أنا إنك وحنوفا إيدينا إياه حل النبي عليه الصلاة والسلام دعوين كاهدين تيد عن وسنبي والسحن صايران سمعنا صاحبان بودي لهين ولا نجا خير بدنا ولا نجا إيمان بدنا ولا نجا خير شعلا ولا نجا تجمع عبادة ولذلك الرجع وحاكم ذها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وارضاهما ونكير النبي رسول كلاه يو انه مال والبر بس سومين ربي ولا يري قران كمال والبر بالمد مال والبنو دمير ربي النبي وين بدن كلا تلي اخر كمركو وايلين يري تلada nabiga aan qaatay hadda waa waayeen waxaan sameyn jireen ma sameyn karo marka waxaan rabaa inaan iraahdo cibaadadoodii bay la gashay waxoogay ka badbadiskii wuxuu rumaynayaa qofku marka intan islaamku jideeyay kuma filla islaamkuna cibaadadii intii loo baahnaa ma jideynin kadib intii islaamku jideeyay hadii la waayo maxaa soo haray adu ku dardarsa waay halkaana bidc badan iyo quluwi badan baa ka yimaada marna
qulubu wuxuu kaaga imanayaa nusuustii dadka aadamuhu muslimkiihi nabigaaba sheegay kullu bani aadama khataab aadam waa qalad badan yahay ambiyadun baa ilaahay dambi ka ilaaliyay inteena kale maanta eray iyo ficilba dambigeennu waa badan yahay qof baa ilaahay aad u caabudaya waxaa la weynaanayso mudan oo saxan ilaahay in la caasiyo markii ilaahay in la caasiyo ay la weynaato dadkii caasinayay buu nacayaa intaa dhib ma laha naci baa ka badanaya marka iyagoo ku noqnoqonaya oo samaynaya markuu arko iyo wuxuu ka cadhoonayaa ilaahay inay caasiyeen oy dunuub cisyaana ka galeen marka caradii waxay dhaafinaysaa wuxuu xasuusanayaa keliya ilaahay shadiid ulciqaab waay laakiin wuxuu halmaamayaa ghafuuru raxiim inuu yahay markaasuu wuxuu gaadhayaa heer dadkan ilaahay waa kollaba wuu cadaabi doonaa naar iyo cadaab bay muteen qaar uu diintaba ka saaro ilaahay qiiro diineedu u qiiraysan yahay oo uu gaaleeyo qaar uu naxariista ka gooyo nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiid waxaa ka sugana fii saxiixi muslim wagayrihi laba ninoo walaalo ahaa ninna nin cibaado badan buu ahaa ninna nin dembi badan buu ahaa maalin kasta walaalkii uu la hadlaayo wuxuu yidhaha dembigan iska daa ilaahay ka cabso war waxaan daa kanna wixii ma daaye waa dabaashaa maalinkii dambe wuxuu sameeyey wuxuu aad uga xumaaday oo dembi ah dembiga nusuusta riwaayaadku ma magacaabin oo waxaasuu sameeyey ma dhihin intuu arkay buu wuxuu yidhi wallaahi laa yarxamu allahu lifulaan ilaah baan ku dhaartay ilaahay hebel u naxariisan maayo qofkaasi wuxuu ka xanaaqay dembiga qofka uu sameeyey caradii uu cadhooday wuxuuna jeclaan lahaa ilaahay inuu ateeco maalin walba ku waaninayo caradii uu cadhooday yaa waxay la gaadhay qofkan ilaahay uba naxariisan maayo dembiga intaa la eg sameeyey ilaahay baa waxyooday oo wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya qofkan igu dhaaranaya qofka inaan u naxariisanayni waayo isagana dembigii waan ka dhaafay adna camalkaago dhan waan buriyey qofkan muxuu ku mutay uu cibaado badnaa dembi ma samaynin kale laakiin ciilkii iyo caradii ka qabatay ilaahay baa la caasiyey baa la taraartay inaad ka cadhooto way ahayd laakiin insaanka bini aadamka abiicadiisu markuu cadhoodo isma xukumo walidaalika markaa cadhooto waxyaaba badan oon suuragal ka ahayn markaa caadiga tahay baa suuragal ka ah inaad ficil samaysiyo inaad hadashiyo inaad wax ku dhufatiyo inaad wax jejebisiyo inaad meela marta badan baa suuragal ka ah innaga hadda wax reeraheedna dumiya daqiiqada la cadhaysan yaho laisku cadhoodayn sooma wax reeraha dhan baabi'iya hadhow markii shaahdaay la miyir qabee la caadiga laahaana waxaan suuragal ma ahayn hadhow haddii la miyirsadana waa laga shallaayaa marka caradu meel god iyo belay kaa tuurtaa diin iyo dunyaba walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninkii dardaaranka weydiiyey waa kii kuli laa taqdab ha cadhoon kaasuu yidhi ii dardaaran haddana wuxuu ku celi ha cadhoon ii dardaaran ha cadhoon caradu dee waad aragtaayoo halkan tusaalaha aan hayno nin bay naar gelisi marka way dhici kartaa adoo diinta ilaahay u cadhaysan adoo cibaadada ilaahay u qiiraysan adoo macsiyada la caasiya ilaahay ka dagaalsan oo ka cadhaysan inay meel xun kugu rida way dhici kartaa saa darteed weligaa in hataa cadhoota xataa cadhadaadu ayna kaa badan nusuusta nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam way fara badanta waxaa ka mid a xadiidka abi hurayra radi allahu canhu tirmidi iyo keyrkii warinaya xasanka ahaa wuxuu yidhi axbib xabiibaka hawnan ma casaa an yakuuna bagiidaka yowman ma wabqad bagiidaka hawnan ma casaa an yakuuna xabiibaka yowman ma qofkaad jeceshahay jacayl miisaamanood wax iskula hadhay jeclow waxaa laga yaabaa berri inaa isnacdaan adoo wax walba u sheegay qofkaad nacaysana nacitaan miisaamanood wax iskula hadhay nac berri inaa isjeclaataan baa laga yaabaa adduunku waa isbedbedelaa dadkuna duruuftooda way isbedbedeshaa iyo qaab dhaqankooda waxaa sidoo kale isbedbedela quluubtu way isbedbedeshaa qofaad shalay necbayd dadkuna dabaa'ic kala duwan bay leeyihiin qaar waxaa jira hadduu wax jeclaado wax islama hadho wuu ka badbadiyaa hadduu wax nacana wax iskulama hadhe wuu ka badbadiyaa meel dhaxa ma istaagi karo inuu derbigaa tago ama derbiga kala taga maahane waa 100%.
hadduu ku jeclaadana 100% boqol way hadduu ku nacana 100% boqol waay marka nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaam adduunyadan waxa walba u dhacaa wixii shalay jiray maanta waxba iska bedela qof aad shalay jeclayd baad maanta nici hadda wax walba faraha ka gelisay maantana isku dhacdaan oo isdagaashaan soo waxaagii oo dhan banaanka ma yaal haddii saad qofkan aadan waxba u laharin berina ismudataan oo isjeclaataan soo dhimaha wixii shalay ka tagay ee fara laga haye eray iyo ficil ka tagay sadarteed qofka muslimka waxa laga doonayaa qof miisaaman inuu noqdo ahbib habibaka hawna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghad baghidaka hawna ma asa an yakuna habibaka yawman ma qofka jeceshahay ku talagal berina isku dhici kartaan qofka nacab tahayna ku talagal berina isu soo dhawaan kartaan wax lahad wax isku reeb wax gadaal isu qabo wax walba halka u dambaysa de lama gaarsiiyo lama nacas xaaro waxa kale ka sugan nabiga kaleey salaatu wasalaam mar kale uu tilmaamayo diintan iyo ku dhaqankeeda kaas wuxuu inna ad-diina yusr wala yushadda ad-diin ahad illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wuxuu diintani way fududa qofkii isku adkeeya oo meel adag baan ka qabsanayay inta adag baan raaciya nafta ku adkay yiraahday isagu baa hawl gabi dooro marka dambe ay la soo gaaban toosnaada wax dhaxdhaxaad oo miisaamanna sameeya naftu amalayna karina saarina amal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kii aad wadi karto hada salaatu kanayso hadaad soomayso waxaad wadi karto joogteen kartaa fiican caawo dhan waan soo jeedayaa de habeenka sama soo jeedi karta caawada soo jeedo bari shaqo tagto habeen daba waa dhici laakiin caawo waxoogay hadaad seexato waxoogayna tukato waad wadi kartaa naftuna waxaynan awoodin dushaha ka saarin walidaalika xadiis kale oo xadiiska waa Abu Hurayra xadiis kale oo laga warinay Abdullah ibn Amr ibn al-As wuxuu lahaa in hada ad-din matin fa'awghilu fihi birifq diintani diin adag weeye si tartiiba u galo ugu dhaqma hadda tiraada xog iyo orod ban xagga shooga bixi xaaladu way kula taraari marka damara naftaadu way hawl gabi wax boodi karti xikaabadii walidaalika nafta dadkii ku adkeeyay cadaabay marka dambana dhinaca kaliya ciyaadaadka iyo diintaba inay ka tagaan bay ku dambeeyeen Soomaaliya arag takfiirka soo nafta isaga qaadayo oo wax walba isugu adkaynayo baad maalinka damana arkay dhinaca kale isagoo ku dhaafay waxaan garanayaa dadaan Soomaaliya makhaayadaha wax ka cuni jirin dadka wax lama cuni jirin kalluun bay daban jireen waxaan kalluun ahayn mayna cuni jirin waayo xoolaha la qalo dhan waa xaraan suugo wax kuma darsadaan ragaan aqeenay qaarkood waxay gaadheen inay ka shakiyaan xataa dharkan gaala samaysay oo waa nijaas oo lama ma dhaqmaya kadib qaarna harag magaday xidhan jireen dhar ka dhigan jireen qaarkoodna waxa suuqa lagu gada waa la taataabtay intay ka shakiyaan baa jawaanadan maryaha ah burkiya ka dhamaadaan qaar xidhan jiray baan garan markii dambe waxaan arkay iyagoo salaadii ka tagay nafti markuu cadaabay dhinaca kale waxa ka goosatay waxana dii la caburiyo la cadaabo wax ka tan badan la saaro oo ilaahay ku waajibinin marbay fakan markay fakato diintii dhaxda ahayd ee fududayda lagu dhaqmi jiray orod bay dhinaca kale ooga bixi dad badan oo sidaas oo kale qulubiga iyo adkaynta ku jiray marka dambana xagga shayagoo marayo mid baan ku wareedhe xaggaan idinku ogeeyna xaggana ma noo dhaafteen goorma orod nagu dhaafteen oo orod nagu marteen naftu saas darteed dabeecadda ah marna geeskaan jiraya haddaan ka soo dhaqaaqana meel dhaxa ku hakan maaye geeska kalaan qabanayaa weeye waxa la diidan yahay dadkuna tabaa'icda way leeyihiin laakiin caqiidada iyo diinta iyo sharcigu inuu ku layliyo ku hofo ku taabara la doonaya waxa nabiga ka soo kala saacasan fi sahih muslim wa ghayri min hadith ibn mas'ud
هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهلك السمي كو الدين تسكو أتكاية كو الدين تسكو أتكاية كو الدين تسكو أتكاية وحيرد أو دنقا كغدقن كودقن دينته حارانته اسكا إلالي عبادات كان كغدقن رحمتي أن حريستها المامنة عرضي غضب كيون كوكو بدن وما كان غالب نقول موقف كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع بدن بايسوي يمد نبينا ويسيس وحب حي خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أعماشي إن حجك يقاطع سنة كدب من إذا أني أرقب على غيابه أو إشارة النبي عليه الصلاة والسلام جشي سوني سود واتي حجك مركل لغن نقضي مدو بنان صدح بلاد وقياستي أما كيرنا وغيريو النبي عليه الصلاة والسلام إذا النبي قال الله ولا حريرات ديو oo jamaraadka la dhagax tuuranayo oo intii Carafa iyo laga yimid Musdalifa la soo maray mina la joogo dhagaxii la tuurayay badalka qaarkii dhagax weyn tuureen nabi la hadlo dadka ayuha naas wuri markii la soo wada jeedsaday oo dhagax yar intuu qaaday buu midla hada kan oo kale ha lagu tuuro dhagax yar dhagaxa yarkii meeshana waad ku ridi kartaa dadka ugu horreysidee qofku ku dhacana waxba yeeli maayo laakiin dhagax weyn hadaad gadaal ka soo tuurto qofku ku dhacayso in madaxa dhaxramo dhiig ka daata ma hadda inaga kuwa kaba tuuraya kuwa dhagax weyn tuuraya kuwa wax kala markuu waayo dallada uu watay buu tuuraya markuu muguf ka siiyo qof bay madaxa ka qotonsanaysa marka nabi xasan wax badan baa la xeerinayay qofku qaarna waa u dhawaan karaa meesha godka qaybna waa ka fogaan karaan subaxa min hal milyan oo qof baa raba inay ku wada ridaan meel godkeedii iyo duleelkeedu mixraabka leeyahay hal milyan markaan leeyahay inta isku soo gaari kartay waa 100,000 laakiin xajka guud 2 milyan 3 milyan baa imanaysa subaxa waagu bariyay baa lagu soo dhaqaaqay waa meesha dadku la isdul maray waagi hore la dhiman jiray meedka laga talaabsan jiray hadda waa la nadaamiyo oo yaraha roonaatay meesha sidaasi dadka intee leeg baa intay kor istaagta ku ridi karta dhagaxay wadato tiraadu yar inta kala banaankaas ay ka soo wada tuuri inna waad la heli inna waad la gefi marka nabigu wuxuu yiri midla hada dhagaxaas oo kale halka markuu maray wuxuu yiri wa iyaakum wal ghuluwa fi diin fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum diintii laga badbadiyo iska ilaaliya ummadihii idin ka horeeyay buu baabah ka dhigay ugu baabiyay diintoodii iyo dunyadoodiiba غلوي با ابر كدغاي maxaa laga hadlayaa dhagax wax ka weyn la qaato oo ka badbadaysa dhagax waxa ka weyn la qaatay muxuu geysan karaa qof madaxa ka dhiijin karaa inta kaliya waay laakiin hadaad wax ka weyn diintii ka badbadaysa de nafna waad gooyn kartaa taadaad halaagi kartaa oo gooyn kartaa ina taada ilaahay dartii intaad u cadaabtay dishana way dhici kartaa taariikhda muslimiintuna way soo martay taariikhda muslimiintana dad naftooda ilaahay dartii u dilayo ama sun siiyay ama mindi ku dhuftay way soo mareen in naftaadu adabaad ilaahay subhanahu wa ta'ala markaad caabudayso diinta dhinaca inaad u dhaafta lama ogola taasi waa nusuusta qayb quluwiga ka hadlaysa dhinaca kale nabigeena calayhi salaatu wassalaam حديث كلام بدو فربضان باك سوغانو waxa kamid ah inuu nabigu leeyahay iqra'u alqur'ana wa'malu bih quraanka akhriya kuna dhaqma wala tajfu an wala taghlu fi quluwina ha ku samaynina xuquuqdiisina ha ka gaabinina hadayicina quraanki akhriya akhriskiisu inaad ka badbadiso oo qiraa'adii iyo xuquuqdii uu lahaa aad ka badbadiso way dhacdaa inaad ka gaabiso jafaa ku sameysoodan aqriyinba هذا انتهت إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذا القرآن بكلا بحنا وذا ضميننا يدنا الجفاوي لما وقال غروبنا وحاكمده حنقرنا يا 1989 ساش كان مفرين حل قاس باشن قاري سالوش اللي هذا مولع يركو يلي صدما يقف بقادي شري نمبا تكيه صلاة صباح ادور ما هي نول يا غيري
faatixadii una tukinayay buu afar qiraa'a ku akhriyay wuu dhammeeyaa waa ku celiyaa waa dhammeeyaa aayadda qiraa'a kale ku akhriyaa waa dhammeeyaa qiraa'a kale ku akhriyaa saas oo kaleeto dad baa ku daba taagan dad baa tukanaya nooc quluwi ka mida waay qur-aanka marka la aqrinaya marka akhriskiisu quluwigana inaad ka dayso ku dhaqankiisana quluwiga aad ka dayso lidaalika nabigaanu quluwiga muxuu noqon karaa tilmaamay wuxuu yidhi walaa ta'kuluu bihi walaa tastakthiruu bihi laba midna ha samaynina qur-aanka waxaa ku cunina qof qur-aanku qaraabta ha noqon qur-aanku akhris iyo ku cibaadaysi iyo ku camalfal baa loo soo dejiyey qur-aanka looma soo dejinin ku ugaarsi looma soo dejin inaad wax ku cuntood wax ku ugaarsato oo tiraahda qur-aanka qur-aan maal baan ahay looma soo dejinin waxaa kaloon loo soo dejinin inaad ku faanto looma soo dejinin quluub waxaa ka mid aad ku faanto qur-aankaan aqaanaay oo dadka kaga faanto iskula weynaato ku dhaqankii maaha qur-aanku tawaaduc iyo naftaada inaad xaqirto ku faraya dhaqankiisii ka mid maaha qur-aanka axkaamtiisii in meelaynan lahayn aad ku dabaqdood saartana quluwi waaye waxaa jafaa ah qur-aanka axkaamtiisii inaad ilaalinadoon ku dhaqmin ood axkaamtiisii dayacdo oodan xaaraamtiisii ilaalinin oodan waajibaadkiisii ilaalinin waajibaadkii dayacdo xaaraamtii ka tagtana jafaa wey walidaalika qofka qur-aanka xambaarsan ee muslimka agtiisa inuu qiimaha ka yeesha la doonayo labadaa qof ee xunxun midna maaha waxaa nabigana ka sugan alayhi salaam xadiidka musa al-ashcari inuu yidhi ina min ijlaali illaahi ikraamu dishaybati lmuslim wa xaamili lqur'aani gayri alghaali fiihi wala ljaafi canhu waxaa ka mida ilaahay weynayntiisa qofka muslimka ee waayeelka ee cirada leh in la sharfo oo la ixtiraamo waxaa labaadoo ilaahay weynayntiisa ka mid a qofka kitaabka qur-aanka xambaarsan in la sharfo oo la qadariyo waase qofkaan quluwi iyo jafaa midna ku samaynin aan kana badbadin axkaamtiisii aanan dayicinna axkaamtiisii ee axkaamtiisii qiraa'a iyo camalba ilaaliyey qofkaa qadarin iyo ixtiraam buu mudan yahay lagu ixtiraamo kitaabka ilaahay ee sida saxda iyo xaqa u xambaarsan yahay waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa tushadiduu calaa anfusikum fayushadada calaykum ha isku adkaynina markaad idinku adkayo faina qowman qablakum shadaduu calaa anfusihim fashudida calayhim fatilka baqaayaahum fi sawaamici waddaariyaat wuxuu yidhi naftiinna ha ku adkaynina diinta markaa waa laydinku adkayn ummado idinka horreeyaa diinta isku adkeeye markaasaa iyana xagga min allaahi lagaga adkeeyey baaqigoodii iyo intii hadhaagii ka soo hadhay way baabi'eeno way firgo-eene wa kuwaa duurasha sawmacadda iyo guryaha uga dhisan yihiine ummaddii iyo dadka intay ka dhex baxeen meelahaas ilaahay baan caabudaynaa lehee duurgaleeyey waay saa darteed islaamku duurgalayntaa iyo lama ogola waxaa la rabaa ilaahaygaagana caabud naftaada xaqeedana ilaali walidaalika cabdullahi bni camr ilcaas nabigeena sala alla alayh wasalam markii uu yidhi wuu cibaado badnaa soom badnaa uuna salaad badnaa aabbihii camr bn alcaas iyo cabdillaahi wax badan ma kala weyneyn 13 sano mise 12 ilaa 14 sano ay kala weynaayeen maalinkii dambe ninkan oo iska zaahid oo iska cibaadaysta baaduqi abiyaaba u guuriyay gabadh dhowr habeen markuu joogay buu reerkii soo booqday duqi cabdullaahi oo maqan buu yimid gabadhii buu weydiiyey oo yidhi adeer ka warran odaygaaga waxay tihi waa nin khayr badan maalintiina waa sooman yahay habeenkiina salaad buu tukanayaa eraygaa fariin buu ahaa camrulcaasin caqli badan buu ahaa wuu fahmay wuu tegayoo nabigu u tegay sal slam nabigu uga dacwada wuxuu yihi rasuulka ilaahu ninkii gabadhii aan u gurigeeyey xaggee jirtaaba ma dhihin habeenkiina salaad buu kaga mashquulay maalintiina soom buu kaga mashquulay
nabiga uu yeeray sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna li jasadika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqan naftaadu xaq bay kugu leedahay rabbigaana xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leedahay mid walba dii xaqiisa ilaali inuu mid ka batan ma xaq rabbigaaba hadda ka tanbadiyay kaas naftiina cadaabtay xaq reerkaagu kugu lahaana dayacday sidaana sax maaha inagu waxaanu dhihi lahayn ma sha Allah barakallahu fiik wa qof ilaahay u go'ay ilaahay u go'itaanka la rabaay adduunyada in laga taga maaha adduunyada lafteedu waa xuquuqdana ilaahay baa waajibiyay naftaada xaqeeda aad gudanayso waa xaq rabbi waajibiyay oo la doonayo isaga laftiisa cibaado inaad ka dhigto isaga laftiisa cibaado ah reerkaagu xaqu kugu leeyahay ama gabadh odageedu xaqu ku leeyahay rabbi wuxuu waajibiyay isaga laftiisa cibaado ah laakiin macnaha cibaadadu hadduu ka yar qalloocdo sidan oo kale baa dhici inna li jasadika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqan mid walba xaqiisa ilaaliyo si ayuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam inaasi waxay kamid ahaayeen qayb kooban oo aad u yar oo rasuulta nabigeena ka sugan weeye sallallahu alayhi wa sallam oo lagu tilmaamayo qofka muslimka ah hadday aqeeda noqoto hadday cibaado noqoto hadday muaamalada dadka iyo xuquuqda noqoto iyo dhaqanka inta midkay noqotaba in uu qof isu miisaaman noqdo oo midna dhinacaan u badanin dhinacna aanu janjeerin aynan ka badanin xagga cibaadaadkii oo laga gaabiyo aanu badan iyo amalkii in laga badbadiyo nafla cadaabana aanu badanin sidii nusuustu sheegaysa nusuusta waxaan ka faa'iideysanaynaa fara badan in wasatiyada ama dariiq dhaxa ku toosnaanta qofka muslimka laga doonayo ay aqeeda leedahay inay cibaado leedahay inay muaamalada dalla noolaanshihi leedahay inay xuquuqda naftiisa taabanayso iyo suula macaamil laha dadka cidda ugu dhow ay taabanayso cidda fogna ay taabanayso taas ay tii loo baahnaa dadku inay sameeyaan ama qofka muslimka rag iyo dumarba laga doonayo inaynu ku dadaalo inta karaankeena ilaahayna wax badan weydiisano inuu inoogu kaalmeeyo nafiya shaydaan inooga gargaaro dariiqa ku toosnaantiisa sida la inaga doonayo way waxa kale inta kadib waxaan ku soo ururinayaa waqtigeenu saacan sheegayay intii nusuusta aan aqriyay ila taraartay muslimiintuna waxaan ku soo ururinayaa masalada ugu dambayso ah muslimkuna diimaha kala marka la eego dariiq dhaxo oo toosan way labadii dhinac midna maaha ahlu sunnahana marka la eego muslimiinta dhaxdooda dariiq toosan oo dhaxa weeye ma aha labada dhinac ee lumay midna maaha islaamku laba aan ka soo qaadna kaliya tusaale aadamuhu diimaha kala duwan haysta rabbi hal la caabudo marka la yiraahdo ya rabbi xaqiisa hal la ilaaliyo inna inkiraad iyo aflagaaday ka bay uga baxeen ama jiritaankiisa inay inkiraan oo waxay yiraahdeen in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr wa noloshan adduunkee ilaah iyo aakhariya waxa kama jira beentiin waa nool lahay waana dhimanaynaa dhimashadii oo noloshuna waa dabiici dabeecadda waay waqtigaagii baa dhamaanayo jirkaaga iyo xubnahaagii baa say u shaqeynayaan bay hawl gabayaan saan baa lagu dhimanaya wama yirikuna illa ad-dahr dabeecadda wareegaysu buu qofku kala tagayay ilaah baa diriya malakum mawdi aakhariyo baan iyo barabaganda weynala dhaaf waa waxa maanta badan waay qolyana intay diima sheegteen bay rabbi ay ula istaageen وقالت اليهود يد الله مغلولة waxay dhaheen yahuudi ilaahay waa bakayl wax gacan adag yahay gacanta saa wax ma bixiyeen marna waxay yiraahdeen laqad kafara alladheena qalu laqad sami'a Allahu qawla alladheena qalu inna Allaha faqir
ونحن أغنياء إلهي وصبول باهم بيدهن مسكينا وحبه يسوى مسكين فقيرا وحبه يسوى هل كاسا يقولك لدكتي ودينا عاس جفابي يسميانو إني اعترافان بواديدين أريجي وناكسنانا واديدين قولنا ويكبت بديانو إلهي والله عابده وحي كأقدو لنا والله عابده بيرادين وأنبيادي يا ملائكتي بيعابدين عيسى إلهي با صادري إلهي با جعل اسنا إله النمذا قدر وليهبل إلهي با جعل اسنا إله النمذا قدر انت اللي عابده انت اللوم مليي إلهي إنو جعل يهي أما كأقدو يهيبا ضمان عباده قدرين وحلالي وحي ملايين إنو إلهي بركيينا يكسب بركة كل يهينا ويعابدين إلى بركة اللي قبت بديه وتشير لعاوده ويشير لعاوده مارتن صدح كونه تشيره ومعبدية مساجد لسنيه كبوحة ومكات لصوق قالوا كوكو السعر والروتي قوستان ماشي كقوستان لقد دوا قوستان الله بركيسان ولي ماركتين النت كذا استعماشان انت هذا جوجل قراي انت جوجل قرايسان وحاد رات تمبل قرايه halkaas isagoo dadka fiidiyoo ku dhex socdo oo ku kor socdo leeyahay Allah barakaysanaayo waa xayawaan barakaysan ilaahay baa barakeeyay baa laga dugsanaya cibaadadii baa madax martay markaas wax walba la caabuday dadku loo caabuday Soomaaliya arag wadanka way joogan iyaga loo la caabuday Hinduus qaar baa loo caabuday kaadidooda way barakaysan tahay marka idinkuba دانو نيروبي معابد وذا ما قانا مباسا وكان أرضي كاها قرنا ياهي معابد منباسية تنبالله ذا نقف كي تغا حتى تتشابين كرتان الله ذا كادي ذا دينا بركة يسانا يان تدك الله ذا يقانا الله ذا هدي الله يرعى يريد الله قهر ويك هذا تتصوع يرسان الله ذا معبد كودي أكتيسا كقهر مكي كادي في تشان كأردية يكوب كأردية ماشا كسو بحي كادي الله مرسانية إذي كارك دورا ياب كذا وقارديدا هنا أديانتي فرقة ديجان شري بانكوت تشابين شري كل الله ذا كوت تشابين شري مركا خلق عنا إله لا عابده بيكبر بريان مركاسا حيوانات كي جديه انت الله صار ضعفي وتشيرك لا عابدي بتشير لا بركة سنة يا هذا بالتشير محو نفعه كوتري حيوان كتشير مسكين وسقط عم حوتري هل كاسي مسلمكم إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سنة إن لو كلياله أنا العاين لغو أفلقا دونين بعقيدية مبدأ تلاو صلى الله عليه أنبياء ذويمو أنبياء ذي قرنا وكبت بديانو إله بيكدقان مسلمين تنقار بيساميين وكريستان كها وقالت النصارى المسيح ابن الله إن الله هو المسيح ابن مريم إن الله ثالث ثلاثة عيسى والنبي الله صاد ريها باتشعيل كيسينتي كبت بديان بإله كدقان مسلمين تنقار بيساميانو هل كي يمال كسر رئيسنا محمد جي عليه الصلاة والسلام محمد سيد الكونين والثقلين من عرب ومن عجم مركو بيصيروا واكي كلها همزية ديس محلها هي برديس يكوا كلام لمتك يا لمانا إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هوا مسلمين تبيساميان قل يانا نمانكي غير يهودا هيا كوالا ميدانا أنبياء دي بيبا الله ينبا كنا النبي يجيبوا كبد بديو عابديا كنا النبي يجيبوا الدليا ويقتلون الأنبياء بغير حق فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قارنا بابا الله ينبا نبي يدي هدبا أمده إلا ينيسا إيين عابديسا بي مسلمين تقول حيان نبي إلا الرميو شرعي سنة الله راعه أنبياء لن الله وضع الرميون لا قيب رب النمانا آن لا جارسين ونهر لعابود الله إلى وطريقة أحدحات جدك حياة توصن دين الإسلام كأوي قالوا سنهنا هدي هذا يكتو يجون ندتك بدعة بيود حيان هدي الصحابة النبي قال الله هذا اللي يراده ندتك مسلم كشيغان أياه لبقى قالوا سقل ذنب الصحابة دي ولا دقمين
qolo way gaaleeyeen oo way laayeen ama gaalnimay ageeyeen طوائفta muslimiinta waciidiyada la isku yiraahdo oo khawaarij iyo mu'tazila wixii ka soo bilowda Uthman saxaabada waa gaaleeyeen si cad waxa uu gaaleeyay khawaarij waxa gaalnimadana ageeyo xadiisiga waxba laga qaadan maayo yiri mu'tazila oo yiri way islaayeen dagaalkaasi laguma wada saxnayn midkii saxnaana garan mayno wax la yiraahdo faasiqun la bi'aynihi waay qolyaa faasiqiina laakiin ma garanayna hadii la kala garan waayeen isla wada tuur dii la kala garan waayeen qashinka ku wada darway qaybta intooda badan ee kala waxa diintaba ka saaro lacnaday bala qaba shiica la yiraahdo wada hadda nadka gashaan ama sawirada haysaan Soomaaliga shiicoobaya ma aragteen ee shahaada loo qabanayo Soomaali shiicoobaya shahaada loo qabanayo shahaada waxa kamida inuu Abu Bakar lacnado oo Umar lacnado oo Uthman lacnado oo Aisha lacnado oo Hafsa lacnado oo yiraahdo gaala ahlu naar waay baa kamid YouTube ku jirta Soomaalida iyagu ay soo dirdiraya waa arkay Soomaaliga Sacuudigan joogaa buu leeyahay runtii tooriyad baan ka soo hadlaya wixiina hadda waan ugu dhaxfaafaya ogow waxa diin laga dhiganayaa tawxiidka diinta lagu gala lagu daray saxaabada in la gaaleeyo la caayo laga bari noqdo la jaayfeeyo baa diin lagu gala laga dhigtay khawaarijna nimanka waa muslim ninkii la yiraahdo waa badil Ali waa dileen Uthman waa dileen rakalana waa sigta waa dhaawaceen intaas oo dagaal la waa ku qaadeen Ali waa kii la dagaalamay radiyallahu anhu warda ila aakhirkiis ahlu sunnuhu qora kalena saxaabada ilaahay bay ka dhigeenba oo nimanka shiicada dhinaca kala marka la eega Ali iyo Hasan iyo Hussein iyo Fatima radiyallahu anhum jamiican heer ilaahnimo waay ila qaarkood ay ku yiraahdaan aayad quraana ayagu ku fasiraan waraan Ali oo daruuraha ku jira weeyo unkadkii guga caad maqlaysaan waa hadalkii Ali uu iman doonaayo aakhira isaga xisaabin doona dadka qaarkood wuxuu fasiray aayad la yiraahdo afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah uu taagana ku xisaabi doona naf walba waxay samaysay afaman huwa midka oo Ali ahbujir qaa'imun ala kulli nafsin Ali baa qof walba xisaabin doona jazaha jannada iyo naartana siin doona inagana dad awliyo ku aafoobay baa quluubigii la galay sunnuhu labadaas ay u dhaxayaan saxaabadu waa dad fadli iyo khayr badan amaan iyo sharafna inaga mudan diintan u soo gargaaray nabi maxamedna garab iyo hiil siiyey sallallahu alayhi wa sallam saxaabadu waa dad mudan ilaahay raalli ahaanshiya naxariis in loo weydiiyo dhinaca kale saxaabadu waa basharo diintayna soo gaarsiiyeen bay ku mahadsan yihiin laakiin iyagu anbiyana ma ahayn waxyina kuma soo degin rasuul la inoo soo dirayna ma ahayn dadka awliyada ee wanaagsanna ilaahay agtiisa khayrka kalaam oo loo tuhmayana waa lagu ixtiraamaa ilaahayna khayr baa loo weydiiyaa laakiin iyaga warkoodii iyo waxa kale miisaanku waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam mas'ala labaad qadarki ilaahay laba loo qaybsamay iyagana qolo waxay yiraahdeen ilaahay wuxuu adduunkan sii qadaray iyo wuxuu sii ogaa iyo wuxuu sii qoray ma jiro wax walba markuu dhacaw buu arkaa markaan baa la diiwaan geliyaa halka qolaa ka baxday qadariya loo bixiyay taariikhda muslimiinta nabigana xadiis xasan kaga sugan yahay inuu tilmaamayo uu yiri majuusu hadhihi al-umma ummadan qaar majuuso dabcaawada haday jiraan qolyaha qadariyada way adduunka wuxuu ilaahay qorin baa ka socday leeyihiin ilaahay raxmo kale oga ilaahay khayrka buu qadaray qaarkood baa yiri shar laakiin ma oga hadee majuusta lagu yaqiinay ilaaha khayrka ilaaha shar baa jira macnaha hadalkooda laba ilaah waay qolyana dhinaca kale ay dhahaano qof bini aadan ama khiyaar leh ba ma jira yiraahdeen dadku waa wada qasban yahay adiga wax sameynaya iyo dhagaxa meel laga soo tuuray soo diraan diray soo dhacay
isku mid baa tihiin bay yidhahdeen waxba kala duwanayeen qof khiyaar leba ma jiro ilaahay dadka intuu wax ku qasbay oo yo khiyaar lahayn buu haddana u cadaabayaa bay yidhahdeen oo iyagana jabriya loo yaqaanaa taariikhda muslimiinta ahlu sunnuhu labadaasay u dhexeeyaan wax walba ilaahay waa qadaray qofkuna khiyaarkiibuu ku sameeyaa masale dhib badanna ma ahano maadaama ilaahay wax waliba sii ogaa waxaad samayn doontuu ogaa waana sii qoray masale saddexaadna waqtigaa dheeraadaan u malayno hal saac baan ku darsaday saasa soo gabagabaynaya masalada ugu dambaysaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mas'alada ahlulmacaasi dadka muslimiinta ee dembiga sameeyana laba daa'ifoo muslimiinta ka mid ah baa iyagana labada dhinac ugu taraaray qolo way xanaaqeen see ilaahay dembigan loogu caasii bay yidhaahdeen dadkii bay naxariistii ka afxidheen oo albaabada naxariistay ka xidheen naartay ku ururiyeenoo way wada gaaleeyeen si toosih iyo si dadbanba waxay yidhahdeen qof gaala hadduu maanta oo dhan salaad tukada miyaa laga aqbalayo wuxu tari maya qofka muslimkaana dembi kasta hadduu sameeyo waxba yeeli maayo waa daraf kale iyagana waxaa la tagtay ilaahay naxariistiisa waasacnimadeeda soomaadan arag baa la fogaatay qolana ina rabbaka la shadiidu lciqaabi bay ku istaageen qolana waxay ku istaageen tan intay iska boodeen wainahu lagafuurun raxiim bay istaageen qolo waliba waxay noqdeen fawaylun lilmusalliin naxariista ilaahay dadka in laga wada afxirana oo la ciriiriyana sax maaha oo nabiga cala ninkii intuu xanaaqa yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macana axadan ilah waa nabi maxamed noo naxariisa buuri qof kalena naxariistaada ha ursiinin markaasuu wuxuu yidhi laqad xajara waasican naxariista ilaahay waasaca buu isku dayay inuu ciiliye ninkani qaarkaana ciil iyo qiiro diineed baa la tegay qaarkaana qalbi jilayc iyo naxariis muslim loo naxayo baa iyagana dhinaca kale la tegay ahlu sunnuhu waa u dhexeeyaan qofku intuu iimaan leeyahay ilaahay ka rumaysan yahayna waa iimaankiisii intuu dembi galana iimaankiisana hoos buu u dhacayaa ciqaab iyo cadaabna waa ku mudanayaa haddaba iimaankiisana meesha lagama saarin uu lahaa dembigiisii uu galayna lagama saarin meesha uu lahaa cidina ma dhihin naxariis baad ilaa wi ilaa mudan mana la dhihin ilaahay intuu dembiga kaa dhaafo kuuma naxariisan karo intaasoo dembiga qof sameeyey buu rabbi intuu isaga naxariista dunuubta ka wada dhaafuu janno toos u gelin karaa qof dembi yar sameeyeyna intiisii waa loo ciqaabi karaa laakiin rabbi ma dulmiyo xasana uu lahaa iyo khayr uu lahaana ka dulmin maayo dadka dembi uusan lahaynna saari maayo oo ku dulmin maayo saa darteed baa ictidaalka dariiqa dhexee toosan baa qofka muslimkaa laga doonayaa badanaa markuu quluwigu yimaadana qiiro diineed oo ka tanbadisay iyo duruuf iyo xaalad uu ka xanaaqay oo ka cadhooday baa xuduuddii rabbi tallowsiinaysa markuu jafaagu imanaya oo qofku uu xuduuddii ka tegayana markuu diin ahaan ka dhigayo nusuus naxariis iyo waxbaa ka farabatay ninna nusuusta naxariista keliyuu aqrinayaa ninna nusuusta cadaabka keliyuu aqrinaya walidaalika shariicadeenna lama ogola maantao dhan dadka waciidka inaan ku akrinaya naar keliya maanta aan uga sheekayno oon berri naar uga sheekayno oon saadama naar uga sheekayno sax maaha sidoo kale janno un inaan ka sheekayno maaha walidaalika aayadka qur-aanka haddaad aragtaan ina rabbaka la sariicu lciqaabi cadaabkiisu waa degdegaa naar baa lagu xasuusiyey wa inahu lagafuurun raxiim dembigana wuu dhaafaa haddaad janno laga sheekeeye aragto naar baa daba socoto naar haddaad aragtana jannaa daba socoto inuu qofku tanna rajeeyo tanna ka cabsadaa loogu talagalay haddii naarun looga sheekeeya naxariistii buu ka quusan haddii janno uun looga sheekeeyana cadaabba meesha soo dhigan maayo oo la cadaabiba moodi maayo maantao dhan janno iyo naxariisun baa looga sheekeeya wuxuu iska rumayn wuxuu sameeyaaba ahlu janno inuu yahay haddaba maantao dhan naar iyo cadaabun weliga aad ku wadana meelaan naxariisba oolin oo naarun la wadageli buu ka rumayn saa darteed xataa dadka markaada wax u sheegayso ama naftaada wacdiyayso inay isu dheelitiraadaan walidaalika isu dheelitirankaas baa dariiqa dhexdaa kugu celcelinaya
marka cadaabka xasuusata dhinac baad ka soo carari markaad naxariista xasuusatana dhinac baad ka soo durki quustii baad ka soo carari markaad naxariis xasuusato marka cadaabka xasuusatana isdhigashadii baad ka carari meel dhaxoo jid toosan bay nusuusta kugu celcelinaysaa si dariiqa dhexee toosana ilaahay yiri wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafarraqa bikum can sabiilih aduu toosnaato warka waan badiyo waan dheereeyey sheekhi kale waqtiga ka qaatayna waxaan u malayn 10kii dhinayd baa isagana waqtigiisii muxaadaradiisa uga dhiman intaasaan kusoo gabagabaynaya waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh